nuur daahir geedi waxaa askari ka tirsan saldhigga booliska ee degmada Shingaani ee magaalada Muqdisho ayaa maxkamadda militarigu ay ku xukuntay dil toogasho kadib dil ka dhacay xaafadda Xamar Jajaba 16kii Juun ee aynu soo dhaafnay taasoo ku dilay Cumar Xasan Macalin sida ay sheegtay maxkamadda militarigu warbixintana waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa maanta maxkamadda militarigu ay ku xukuntay dil toogasho askarigan ayaa lagu magacaabaa Nuur Daahir Geedi halka marxuumka uu dilayna lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Macalin dacwad oogayaasha ayaa askarigan ku soo oogtay eed inuu si bareer u toogtay nin oday oo wadada dhinaceeda ku ganacsanayay isla markaasina iibinayay sigaar dilka ayaa degmada Xamar Jajab ka dhacay 16kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen markii ay dhageysatay maxkamaddu marxaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo la jooga marxuumka uu imaaday eedeysanaha oo wata lacag shilin Soomaali uuna u dhiibay marxuumka kadibna marxuumku uu ku dhahay lacagta way jeexan tahay eedeysanuhuna uu damcay in uu xoog wax looga iibiyo marxuumkuna uu ka diiday kadibna si xanaaq leh uu uga tagay eedeysanaha wuxuuna soo laabtay isagoo ku hubaysan qoray iyo boosh wuxuuna xoog ku qaatay baakad sigaar kadibna marxuumka ayaa ku dhahay ii dhig xoolahayga eedeysanahana wuxuu ugu jawaabay 2 xabadood oo mid ka mid wajiga kaga dhacday marxuumka sidaasna uu goobta ugu geeriyooday intaasi kadib ay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aanka xukunkan ay ka gaartay dacwadda waxaana mar kale akhrinaya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute markii ay aragtay maxkamaddu cadeemaha dambi muujinta ee la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen cadeemaha laga qoray maraga qiraalka laga qoray eedeysanaha warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirka marxuumka qorayga uu dilka ku geystay eedeysanaha marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala xeeladayaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in eedeysane deble police 42682 Nuur Daahir Geedi uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo qisaasta marxuum Cumar Xasan Macalin maxkamaddu waxay sheegtay in Nuur Daahir Geedi uu racfaan ka qaadan karo xukunka hase yeeshee ma aysan sheegin goorta la dhageysanayo racfaankaasi aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay